وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، xalqadeena maanta waxay ku saabsan tahay qisadii nebi idriis calayhi salaam markuu alle oofsaday nebi aadan calayhi salaam. dadka waxay ahaayeen diinta saxda iyo towxiidka kuwa ku sugan muddo dheer. muddadaasi ka gadaale alle wuxuu ummadda usoo diray nebi idriis calayhi salaam. idriis calayhi salaam wuxuu ahaa nebi alle, mana ahayn rasuul, lamana imaan diin cusub. wuxuuna alle soo diray ayagoo dadka weli ku sugan yihiin diintii nebi aadan calayhi salaam uga tagay ee towxiidka. waxaa loo soo diray nebi idriis calayhi salaam dadka suu u xasuusiyay cibaadada alle, uguna dhiirigeliyo khayrka, faro wanaaga, kana reeba xumaha. nebi idriis calayhi salaam wuxuu ahaa mid dacwada aada ugu firfircoon, kana daalin wanaag faridda iyo xumaan reebida, ilaa uu alle mansiladiisa iyo ajarkiisa kor yeelay una waxyooday nebi idriis calayhi salaam maalin kasta in loo qori doono dhammaan waxa dhulka ku sugan ee cibaadaysanaya camalfalka ajarkooda mid le-eg, maadaama uu yahay midka wanaagga tusay kuna hanuuniyey. qisada nebi idriis calayhi salaam kama mid ah qisooyinka qur-aanka aada uga sheekeeyey, wuxuuna alle qur-aanka ku sheegay 2 jeer. labadaanina mid waxaa lagu sifeeyey sifooyin waaweyn, wuuna ammaanay alle sareeya. wuxuu dhahay wadkuruu fi lkitaabi idriis innahu kaana sidiiqan nabiya. ku sheeg nebi maxamed oo qur-aanka dhexdii ugana sheekee ummadaada nebi idriis calayhi salaam wuxuu ahaa mid run badan oo rumeeyey aayaadka alleh iyo nebi ka mid ambiyadii uu alla soo diray. warafacnaahu makaanan caliya, waxaan u koryeelnay meel sare darajada ajarkiisa iyo xuskiisa aan ku baaqi yeelnay calaamiinta dhexdooda. habeenkii nebiga sallallahu calayhi wasalam la dheelmiyey ee qisadii israa walmicraaj, nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu arkay nebi idriis calayhi salaam kuna salaamay samada afaraad. muddadaas kadib alle wuu oofsaday nebi idriis calayhi salaam. dadkana waxay ahaayeen weli kuwa haysta diinta saxda iyo towxiidka. waxaa halkaa noo eeg xalqadii uga sheekeynaynay qisadii nebi idriis calayhi salaam. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل.